الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 87 ee min suurati albaqara. qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad wallaahi qad xaqiiqe aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ayaan siinay waqafaynaa waxaan qadaad raacsiinay oo aan ka dabageynay min bacdi muusa nabi muuse ka gadaal birusuli rusushii ayaan qadaad raacsiinay oon ka dabageynay wa aataynaa waxaan siinay ciisaa nabi ciisena albayinaati xujooyin cadcad oo xaqa lagu garto ayaan siinay ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. wa ayadnaahu nabi ciise waxaan ku xoojinay biruuxi lqudusi yacni malakul jibriil aan ku xoojinay biruuxi lqudusi yacni dahirsanaanta ruuxeedi waxaa loola jeedaa ruuxulqudus maanta malakul jibriil biruuxi lqudusi malakul jibriil aan ku xoojinay afa kulamaa ma mar kasta oo jaa'akum reer bani israa'iil uu idin yimaado rasuulun rasuulba uu idin yimaado bimaa shayna uu idinkula yimaado laa tahwa aysan jeclaysanin anfusukum nafyaalkiina aysan jeclaysanaynin istakbartum ma iskibrinaysaan adig oo ma isla weynaataan waaba yaabe fa fariiqan koox kadabtum ma beeniseen wa fariiqan kooxna taqtuluuna fa fariiqan koox kadabtum waad beeniseen ood horaad u beeniseen wa fariiqan kooxna taqtuluuna ma dilaysaan yacni howshin ma intaas oo keliya. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nooga waramaya reer bani israa'iil madax adeegoodii iyo khilaafka maxaa la dhihi jiray ee diinta yani nebiyaalka ay khilaafeen iyo isla weynada diinta ilahay iska kibriyeen iyo habadoodii raacitaanka ay raaceen. ilaahi subxaana wa tacala marka midii oo noo sheegaa iyo kitaabkii nabi muuse oo siiyo towraad ahaa iyo badbedelitaanka ay badbedeleen iyo sidii yani ay sameeyeen ilaahi subxaana wa tacaala uu nooga hadlaya. ayib ilahi wuxuu yihi subxaana walaqad wallaahi qad xaqiiqi aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad aan siinay waqafaynaa waxaan qadaad raacsiinay oo aan ka dabageynay min bacdi muusa nebi muuse ka gadaal birusul rusushii aan ka dabageynay oo nebi muuse kitaabka towraad markaan siinay wuu dhinta soomaha isaga rusushii kalean ka dabageynay oo rasuul hadduu baxo rasuul kalea laga dabageynay waan qadaad raacsiinay waxaas ilaahay suuratu wuxuu ku yidhi yani waqafaynaa ay waatbacnaa oo kale waqafaynaa waxaan raacsiinay fahmaysaa min bacdi nabi muuse ka gidib birusul rusushaan qadaad raacsiinay qafaha waxaa la yidhaahdaa asalka yacni qofka in qof la diro qofka laga dabageeyey marka sidaas waay waxaan daba raacsiinay rusul kale. marka ilaahi subxana wa tacaala suuratu muminuun uu ku yidhi uma arsalnaa rusulanaa tatra waxaan dirnay rususheenaan dirnay si israacraacsan oo isdaba joog ah taasay lamid taha ayadan. ilahi wuxuu yiri aataynaa waxaan siinay ciisa nabi ciisena ciisihii de ibna maryama ina maryama ah albayinaat xujooyinkii cadcadaan siinay xujooyinkii cadcadaa aan siinay maxay tahay way mucjizooyinkii waa wuxuu yiri cabdullahi ibn cabaas wuxuu yiri radi allahu canhuma waa min ixyaa'i almawta wa khalqihi min aطiini ka hay'ati dayri fayanfuqu fiiha fatakunu طayran biidni illah wa ibraa'ihi alasqaama wa ikhbaarihi bilguyuubi saasuu ilaah yiri ibn cabaas wuxuu yidhi waa xujooyinkaas cadcad waa wuxuu yidhi waa dadkii dhintay uu soo nooleyn jiray ilah idinkiisa uu kusoo nooleyn jiray waa iyo waxyaabihii dhoobadii wax qaab shimbir u eg abuuristoo ka abuuraya waay intuu nafku abuurana shimbir ay naqanaysa ilahay idinkiisa iyo dadka xanuunsanaa oo bogsiin jiray ilahay idinkiisa iyo waxyaabaha dadka ka maqan uu sheegi jiray taas waa
ilahi wuxuu yiri waayadnaa waxaan ku xoojinay nabi ciise biruuxi lqudusi daarisanaanta ruuxdeed yani malakul jibriil aan ku xoojinay waxaa loola jeedaa ruux lqudus wahuwa jibriil uu yihi cabdullahi ibn cabaas calayhi salaam jibriila loola jeedaa jibriila ilahi ku xoojiyey afa kulamaa ma mar kasto waaba yaabe oo jaakum reer bani israiil uu idin yimaado rasuulan rasuul buu idin yimaado nabi muusa ladin soo dir nabi ciisa lagu soo xijiyey nabi moxamed hadda idin yimid calayhi salaatu wasalaam ma mar kastoo rasuul idin yimid bimaa shayna idinkala yimaado bimaa shayna uu idinkula yimaado laa taaba aysan jeclaysanin anfusukum nafyaalkiin aysan jeclaysan hadduu idinku yimaado istakbartum ma isla weynaataan oo ma iskibrinaysaan waaba yaabe hadduu idin yimaado alla keligiisa la caabudo oo waxaa la yiri diintaas hore waa la nasiqay aniga nebi allahna iraaca oo isla weyni iyo kibir ila nafsadiina ma jira nafsadooda waxay rabtaa nebi yuhuudi ay rabtay nabigeena calayhi salatu wasalaam waa nebi quraysheed oo carbeed ah fahmaysaa marka adinka ma sidaasaa shaqo ka dhigateen fariiqan koox oo yacni oo nebiyaalka kamid ah fariiqan koox oo min al ambiyaai kamid ahna kadabtum ma beeniseen waa yaabay sidaas u beeniseen wa fariiqan kooxna fariiqan koox oo min al ambiyaa kamid ah kadabtum waad beeniseen oo sidaas u beenin jirteen wa fariiqan kooxna oo min al ambiyaa nabiyaal kamid ah taqtuluuna ma dilaysaan oo sidaas ma isaga dilaysaan waa yaabay kooxna inaad beenisaan kooxna ma dilaysaan qaala tacaala ilahi wuxuu yiri jala jalaaluhu waqaaluu marka sidaas ilaahay subxaana watacaala lagu yiri jawaabtaana bixiyeen reer bani israa'iil inkaaraha ku dhacday ilahi wuxuu yiri waqaaluu nebi yacquub caruurtiisu waxay yidhaahdeen quluubunaa annaga qalbiyaalkeen gulfun galal cilmi ka buuxa weeye ama gulfun daboolyaal ayay ku jirtaa bal e wax quluubtooda cilmina kuma jirtee lacanahum ullaahu allaa lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababkeed ayuun alla u lacnaday faqaliilan maa in aad u yar ee yu'minuuna xaqa rumeeyanaya dadkaas waa dad noocaasuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala ilahi wuxuu yiri subxana wa tacala waqaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil quluubunaa annaga qalbiyaalkeeni gulfun ey akinatun yani waxay ku jirtaa daboolyaal ayay ku jirtaa qalbigeena anaga daboolyaala ku jiro fahmaysaa daboolaa ku jiro daboolyaal marka xaqi maqal maxamed wax walba aad sheegto anaga qalbigeen waa xiran yahay yidhahdeen daboolaa ku jirta saas yani waxba ma fahmaysa qalbigeen marka gulfi waxaa la yidhahda quluubu lmatbuucu calayha waa qalbiga oo la daboolay wa wax walba sheegta anaga qaadan meen wa marka horena waxaan soo marnay wa calaa absaarihim ghishaaba khatama allahu calaa quluubihim ilahay qalbigoodu xiray argayaalkoodna daboolaa ku jira marka midii wa cabdullahi ibn cabaas sidaasoo ku fasiray gulfun ee quluubuna waxaa ku jira gulfun yani daboolyaal macno labaadna waa lagu fasiray oo waxay tahay waqaaluu waxay yidhahdeen quluubuna gulfun meesha dabool aan ku fasirna daboolyaal waxay ku fasireen culamada qaar quluubuna qalbiyaalkeen waxaa ku sugan oo ku jiro yacni gulfun galal cilmo ka buuxo quluubuna qalbiyaal gulfun waa galal ama weelal cilmi ka buuxa wa sidaas ayay yidhahdeen qaarkood ay ku fasireen waa qataada iyo mujaahida ka mid ah qataada iyo mujaahida ka mid ah waxay yidhaahdeen ey waxay ula jeedaan quluubuna qalbiyaalkeeni gulfun aw awciyatun waa weelal weelwa fahmaysaa awciyatun waa weelal likulli cilmi oo fahmaysaa weelkaasoo likulli cilmin cilmi kasta ku jiro falaa taxtaaju ilaa cilmika muxamedo anaga cilmigaaga uma baahnin maxaa yeele anaga qalbigeena cilmiga ka buuxo towraada ka buuxo yidhaahdeen sidaasoo kale ibnu cabaasna sidaasuu ku fasiray isna riwaayad kale ilahay muxuu ku yidhi bal e qalbigooda wax cilmi ku jira malaha fahmaysaa lacanahum ullahu allah lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababkooda ku lacnaday oo khayr wa abcadahum min kulli khayrin khayr kasta ilahay waa ka fogeeyey subxaanahu watacaala saa darteed faqaliilan maa in aad u yar ay yu'minuuna xaqa rumeynayaan dad yaroo iyaga kamid a xaqa rumeynaya sida cabdullaahi ibnu salaam iyo dad yar inta kale xaqa badankood ma rumeeyaan ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jaaahum reer banu israa'iil uu u yimid kitaabun jaaahum walamaa goortii jaaahum reer bani israiil ay u yimaadeen iyaga kitaabun kitaab uu u yimid waa kitaabka qur-aanke kitaabkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisi ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumeynayo limaa diinkii macahum la jirkoodii ahaado towraad aha oo wakaanuu ay ahaayeen yastaftixuuna kuwa ka gargaar dalbo min qabli majii'i lkitaabi kitaabka intuusan imaanin ka hor way gargaar dalbi jireen
cala aladiina kuwii ayay ka gargaar dalbi jireen kafaruu gaaloobay falamaa jaaahum markuu u yimaaday yani reer banu israa'iil maa rasuulkii maada maanta rasuul ku rid maa rasuulkii markuu u yimid carafuu ay garteen kafaruu way gaaloobeen bi rasuulkii ku kufriyeen falacnatullah ilaahay lacnadiis iyo naxariistiisii oo laga fogaado cala kaafirin gaalada dushooda ahaato ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay walamaa jaaahum yani alyahuud waa yahuud walamaa jaaahum yahuudda markuu u yimid kitaabun kitaabka maanta waxaa loola jeedaa kitaabka qur-aanka wa kitaabun kitaabkaasoo min cindi layla agtiisi ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun rumaynaayo limaa diinkii u rumayna macahum iyaga la jirkooda ahaaday diinkii haysteenoo towraad ahaa iyo kii kale oo injiil ah wuu rumaynaa qur-aankan ilaahay nebiga kusoo dejiyey calayhi salatu wasalaam wuu rumaynaa diinkaas wuxuu leey towraad iyo injiil xaqay ahaayeen laakiin waa la nasaqay kitaabkeygaa lagu nasaqay saa darteed diinaan diinteed ee ma jirto sidaasuu leeyahay ayib wa kaanuu waxay ahaan jireen marka yuhuudda yastaftixuuna kuwa ka gargaar dalbo min qabli majii'i lkitaabi kitaabkan qur-aanka tusameen ka hor cala aladiina kuwii ayay ka gargaar dalbi jireen kafaruu gaaloobay fahmaysa falamaa jaaahum markuu u yimid yani reer bani israa'iil maa rasuulkii carafuu ay garteen kafaruu bihi way ku gaaloon rasuulkaas waa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam falacnatullah ilahi naxariistiisoo laga fogaado cala kaafirin gaalada dusheeda marka maxaa loola jeeda wakaanuu min qabli yastaftixuuna cala aladiina kafaruu maxaa loola jeedaa waxay yidhahdeen culummada waxay ahaan jireen rasuulka nabi maxamed soo imaanin ka hor yacni cadowga ayaga cadow badana isdagaali jireen gaalada mushrikiinta oo diinta aan haysanin oo kuwii madiina deganaa mushrikiintii iyo yuhuudda way isdagaali jireen markaasaa yuhuuddi waa la baaba'shay markaas waxay dhihi jireen inahu sayubcathu nabiyun fi aakhiri الzamaan naqtulukum macahu qatla caadin wa iram marka waxay yidhaahdeen annaga hadda waad naga awood baad noo sheegatan haddaan yuhuudna carabey laakiin carabay ogaada dadkiinaan carbeed waxaa soo bixi doona nebi aakhiri zamaanka soo bixi doono markaasaan nebigaas intaan raacno yaan idinka idin laaynaynaa sida reer caad loo laayay iyo reer iram si loo laayo sidaasuu maxamed ibnu isxaaq uu isagana warinaha wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cumar ibnu qataada alansaari wuxuu yidhi sheekh oo yani ka mid ah reer ansaareed wuxuu ka wariyey wuxuu yidhi fiina wallaahi wa fiihim annaga iyo yahuudday nagu soo dejiyey wa fi lyahuudi aladiina kaanuu jiraano yani yahuudi yani dariskeena ah ee kusoo degtay maxaa yeele wuxuu yidhi annaga waan ka awood badannay kunaa qad calownaa hum qahran dahran fi ljaahiliya xilligii jaahiliyada yuhuudda annaga waan ka adkaanay aadaan uga gacan saraynay wanaxnu ahlu shirkin wahum ahlu kitaabin annagoo mushrikiin oo yani asnaam caabudayno iyagoo ahlu kitaab annagaa ka guulaysanay fakaanuu yaquuluuna markaas yahuud waxay dhihi jireen ina nabiya nebigaas oo min alambiyaai nebiyaalka ka mid ah yubcathu laan haddaa lasoo bixin doonaa natabicu markaasaan raacaynaa qad adalla zamaanuhu waqtigiisaana soo dhowaaday naqtulukum macahu nebigaas waan idin laynaynaa macahu anagoo nebigaas la jirno aan idin laynaynaa qatla caadin wa iram sida reer caad iyo iram oo kale falamaa bacatha allaahu rasuulahu ilaahay markuu soo bixiyey rasuulkiisii moxamed ahaa min qurayshin reer qureysheedna uu ka soo saaray watabacnaahu annaga haddaan reer ansaareed iyo carabtiinahay waan raacnay kafaruu yuhuuddana way ku kufriyeen bihi muxamed nabi moxamed ku kufriyeen sala allahu calayh wasalama markaasuu ilahay wuxuu yidhi falacnatullah cala alkaafiriina marka sidaas waa isago nusuulka loo sheegaa cabdullahi ibni cabaasna sidaasoo kale asan u sheegay qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu marka halkaas waqtigaan ugu dheeraaday halkaas iska joogo wallahu aclam wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed